السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دودا موقال عصب وانو كغالي دونا مسليغي دونو بوغا جنس لارادو ولغو قربان كريكوردada cusub ee dadku jabiyaan si fudud u sheegno hadii aad leedahay awood ama sameyn karto waxyaabaha dadka kale sameyn karno adiga ku khaasa buugana lagu qorayaa oo adiga ay recordkaasi ku xinaanaya sida gabadhan oo kale oo ku guuleysatay gabadha ugu afka weyn adduunka waxba cabsan afweyni kaliya uma galay buugan laakiin wax walba oo kaga duwantay dadka kale oo aan sameyn karin ee lagu galiya buugan oo record adiga ku xiranayo ahaan doona ilaa intuu qof kale ka imaanayo oo jabin doono muuqaalkan waxaan ku eegi doonaa goorma buugan Guinness la bilaabay iyo sidoo kale muuqaalada dadka qaar ku guuleystay shahaadada Guinness iyo waxyaabaha dadka kaga duwan yihiin laakiin intaan muuqaalka bilaabin falaadana cusubta subscribe saarsan noola socoto muuqaalada dambe waan idinku mahadsantiin waxaanu gaarnay ku subscribe insha Allah bartaasi ka badan baynu gaari doonaa ka sii socon doonaa buugan Guinness la raado wuxuu soo baxay sanadla markii ugu horeysay waxa la soo saaray sanadii 1955 waxaana bilaabay laba wiil walaalo oo mataana ah oo lagu kala magacaabi jiray Norris iyo Rose waxaana lagu qoraa recordada ama dadyagu sameey waxaana binaadamka kala sameyn karin ama awooda khaas ka leh recordadaasna iyaga ay u xirnaadaan ilaa intuu qof kale ka imaanayo oo recordka jabinayo ama isaga wax ka sii weyn u sameyn doono recordkaas wax ka bedeli doono buugan Guinness la raadana waa buugaag kamid ah kuwa lagu iibsiga badan yahay ee serious ka mataxana asna sanadlaha soo baxa waxaana ku qoran buugan record sida ninka adduunka ugu dheer gabadha ugu gaaban adduunka ninka ugu xoog weyn ninka ugu miisaanka culus adduunka macnaha record noocaas oo kala ayaa ka buuxa oo ku qoran shahaadada Guinness markaas si fudud laguma guuleysto oo shirkadda Guinness ay ku soo darsan markii hore shaqaaleeyga ka socdo oo kula soconaya waxaana sameynaysa xaqiiqba ma khiyaaliba kadib ayaa baaritaan lagu sameeyay waxa sameysay oo lagu guddoonsiinaya shahaadada Guinness si fudud laguma helo markii hore waxyaabo loo baahan yahay waxa kamid ah markii hore waa in dad aad u fara badan soo jeedinaysa fikradan Allah iimaanaysa ama waxana sameynayso waa marka labaad ee weynaan waxyaalo aad u weyn geysan karin oo tusaalahaan lama ogola intaad qof soo qabato oo geed ku xidho inaad eegto bal intuu noolaan karo bilaa cunto iyo bilaa cabitaanba oo saddex shafar asho meelaha ku xidhnaada taasoo kale lama ogola oo waxyaalo ay keeni kartaa oo qofkaas uu dhiman karaaba soo kale lama ogola intaad banki tagto oo lacag fara badan soo xadaad tiraado lacagtii ugu badneed hal mar la wada xado ayaan xaday sadarteed Guinness ayaan galiyaa taasoo kale lama ogola oo waa faldambiyeed noocaas oo kale ay leeyihiin shirkadda Guinness meesha u badan lacagta ka hesho waa buugaagta sanadlaha ee soo baxa sanad walba oo aad loo iibsado runaantii waxaana ku qoran in ka badan 53,000 oo records oo dad u xiran mar walbana records ka wada kordhin karo dadyo cusub bay iman kara ama recordskii hore ee si yaalay ayaa la jabin karaa intaas hadii isla fahnay aan islaagno dadyo qaar ku guuleystay Guinness iyo waxyaabaha cajiibka ee runaantii ku qaataan shahaadada Guinness hadii uu ku bilowno ninkan waxa la raadsaa Sultan Kozel wuxuu ku guuleystay ninka ugu dheer adduunka oo sanadii 2009 ayaa shahaadada Guinness la guddoonsiiyay sawirka xaggan idinka muuqdana ma aha xayawaan ama shaytaan toona ma aha waa qof bini'aadam waana ninka ugu taatuuga badan adduunka shahaadadaas ku guuleystay Guinness runtii kan oo kala duwan laga soo warbixin aniga ama adigoo kale xayawaan ahaan banu dil lahayn bahaleed mooda gabigiisaba runtii markan oo kale waxa xasuunaysa qiimaha islaamnimada iyo sababta islaamku nooga xaraantimay taatuuga iyo waxaas Ilaahay subhanahu wa ta'ala soo hadeeyo muuqaalkanina waa gabadha ugu afka weyn adduunka waxay ku guuleysatay shahaadadaas gabadha ugu afka weyn adduunka Guinness runtii waxa muuqata gabadh funny ah oo kalsoonida fara badan ka muuqato waxa ajiib waliba markan ay baradhada cunaysa qaabka baradhada cunaysa runtii adiga qoslisay ninkan wuxuu ku guuleystay ninka ugu carabka dheer la adduunka oo saasoo shahaadada Guinness ku qaatay carabkiisa marka la aragto waxa xasuunaysa filimkii Venom ha isagoo xaqiiqaya la joogo thing. It's kind of no need for napkin. I use my tongue actually to create, you could call it art, I guess. Adina waa ninka ugu cidiya dhaadheer la adduunka oo shahaadada Guinness ku guuleystay oo cidiyaha ugu dhaadheer adduunka runtii wax uu soo weeyaan basida cuntada cuni jiray talooma gacantiisa u isticmaali jiray xataa adduunka waxa wada naqaaneen qayb aad u muhiim yihiin oo nadaafada qofka bini'aadamka islaamku wuxuu noo sunneeyay inaan ugu yaraan usbuuci hal maalin maalinka jimcaha cidiyaas ka jarno muuqaalkan soo socda hadda tay qof yar uu suusa xoogaa sare dhaafi ninkan idin muuqda wuxuu cabayaa in ka badan 1 litro biyo kadib ayuu haddana u soo celinayaa biyo cabay sidii qasbad la furo kale
waxaan ku tilmaami karnaa qasabad bini aadam. isna wuxuu ku guuleystay shahaadada Guinness. haddaan islaagno buuggan Guinness dhinaca sportiga run ahaantii aniga waxay soo jiitay odaygan in ka badan 60 sano ayuu jiraa haddana wuxuu samaynayaa blink baashan la dhado inta labada gacmood dulka dhigato ee calooshaadii dhabarkana toosinaysa kadib inta caloosha ilaa dhabarka ayaa aad ku gubanaya faad badan ayaana ka dhacaya odaygan wuxuu jiraa in ka badan 60 sano haddana wuxuu ku guuleystay Guinness ana shakhsiyan marka blinkida samaynayo marka ugu badan waxaan sameeyaa 1 daqiiqo 15 second meelahaas dadka caadiga 3 daqiiqo meelahaas sameeyaan ama 1 daqiiqo 2 daqiiqo meelaha laakiin odaygani wuxuu shahaadada Guinness ku guuleystay maahan 1 saac maahan 2 saacadood waa 8 saacadood waa 8 saacadood iyo 15 minute 8 saacadood iyo 15 minute ayuu sida idin muuqato kale uu isku hayay oo aanu nasanaynin aanu fadhisanaynin uu sida ahaa maanta oo dhan waxaana la guddoonsiiyay shahaadada Guinness laakiin maalin dhawid ayaa wiil dhalinyaro iskoorkiisan odayga jabiyay oo 8 saacadood iyo 15 minute buu odayga ahaa laakiin wiilkan dhalinyarta wuxuu sameeyay 9 saacadood iyo badh ayuu bilaan nasasho isaguna sidaas ku hayay runtii 9 saacadood badh waa wax aad u fara badan oo inta 8 saacadood seexato oo soo kacdo aad weli haddana quraacanaysa cuntaynaysa isagu weli sidiisii ayuu ahaanaya blinkuduna waa qayb kamid ah jimicsiga waxa loogu talagalay caloosha ilaa dhabarka inta dhaxda qofka bini'aadamka adkayso faadka ka saarto ama baruurta commentigoos nagu la wadaag blinkidan inta daqiiqo sameyn karto ama inta second sameyn karto hadii 20 second ama 1 daqiiqo inta sameyn karto commentigoos nagu la wadaag hadaan hore u aqoonina hadaba isku xaafada gudaheeda oo lagu sameyn karaa kaliya waxan baad u baahan tahay suxulada waxaad iskaga dhigato ama barkina ahaato ama wax kale ahaadaan kadib dhabarkaaga iyo calooshaada oo toosinaysa inta caloosha ay ku guban doonto marka commentigoos nagu la wadaag inta daqiiqo aad sida u hayn karto calooshaada runtii waxyaabaha aad fara badan oo cajiib ah ku qoran buuggan hadda YouTube-ka ku qorto wad ka helaysaa salahan dad waxaad arkaysaa geesala ama wajigooda wada bareeyino baraskooda taagay aqal xumada dadka qaar ay la yaabaysa oo inta isleeyihiin caan noqdo ama lacag sameeya ay ka tanaasulaya qiyamkoodii iyo bini'aadantinmadoodii oo gabagooda shayaatiin isku ekaysiinayaan oo qaar waxaad soo arkaysaa soornansa kuwani malaa bini'aadanba maaha waa shayaatiin oo geesiyaar dhinacyada ku samaystay qofka bini'aadamka intaanu dhalan ka hor calooshooyada intaanu soo gelinba ka hor ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala arsaaqadiisa u qoray iyo wax walba uu cuni doono intuu dunida joogo mana jiro qof bini'aadam oo isagoon arsaaqadaas helin ama cunin dhiman doona markaa ma jirto sabab qiimkaaga akhlaaqadaada bini'aadantinimadaada ugu tanaasusho si aad caanimo iyo lacag u raadsato muuqaalkana maanta intaas nagu wagahay fadlan nagu cusubtay subscribe sar noola socoto muuqaalada dambe leena sii wada asxaabtaan commentigoosna nagu reeb maxaad ka aaminsan tahay Guinness haddii lagu oran lahaa lacag la soo galna maxaad ku geli lahayd oo ma leedahay waxyaabo khaasa oo adiga ku khaasan dadka kale kareen muuqaalkan maanta intaas nagu wagahay wassalaamu calaykum